tababarkan oo ay ka qayb galayaan suxufiyiin kala duwan ayaa ujeedadiisu ay tahay badqabka saxafiga waxaana cashiro kala duwan ka bixinayay macalimiin loo soo xulay bixinta tababarada ku aadan dhinaca badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed. hay-adda Simha ayaa abaabulka tababarkan iska lahayd iyadoo gacan ka helaysa hay-adaha IMS iyo Voya. Macalin Faarax Cumar ayaa ka bixinayay duruusta tababarka ku aadan badqabka saxafiga isagoo kula dardaarmay saxafiyiinta Soomaaliyeed inay ku dadaalaan ka warqabka badqabkooda. Gudoomiyaha hay-adda Simha Xasan Cali Geese oo ka hadlay tababarka ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah tababarkan uu u yeelanayo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku aadan doorkooda badqabka isagoo kula dardaarmay saxafiyiinta in ay ka faa'iideystaan maalmaha uu tababarkan soconayo. tababarkeenu ku saabsan yahay badqabka saxafiga iyo sida meelaha looga shaqeyn karo magaalada Muqdisho kala ah oo wariyaasha uga shaqeyn karaan sida muhiim u tahay in gacan laga helo laamaha amniga oo booliisku ugu horeeyaan sida aad shalay ku soo aragteen casharada ay qaadateen practice maanta ay qaado doontaan ku arki doontaan iyo casharada safar xusii doono. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiye Xuseen Axmed oo tababarkaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay saxafiyiinta iyo badqabkooda ku aadan tababarkan iyadoo sheegtay in meelaha qaar ee xaaladaha amni ka jira loo baahan yahay saxafiyiinta Soomaaliyeed in ay ka digtoonaadaan isla markaana laamaha amniga inta ay howlahaasi ay qabanayaan ay u siiyaan fursad. run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay horto dhalinyaro oo wariyaal ah oo professional ah gabdhi iyo wiilal almost hadda balance ku soo yara fiicnaanooya muddadii dambe maalmihii hore oo dalkan marka koob imaanay way ku yaraayeen gabdhaha laakiin maalmahan waxaa moodaa inay saru soo kacays marka aad baan igu bogaadinayaa gaar ahaan hablaha jooga waxaan rajeynayaa intaan in ka badan biidnillaahi inay ku soo biiri doonaan. warbaahintu horta muhiimad gaar bay u leedahay dal walba waayo waa isku xiraha shacabka iyo dawladda gaar ahaan warbaahinta madaxda badan ama private media loo yaqaanaba dawladda de warbaahin iyada way leedahay laakiin mar walba u moodaa gaar ahaan qaaradda Afrika inay ka awood weyn tahay warbaahinta sida gaarka loo leeyahay. waxaan ka hadlaynay ama tababarkan ku saabsanaa badqabka wariyaha sideeda boorto ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu u xilsaaran yahay badbaadiyay naf iyo maal muddo waxaan umaleynaa 6 bilood hadda Ramadaankii waxaan bilownay waxa la magacaabay afayeenka ciidamada hay'adaha amniga oo si gaar ah lagu xilsaaray inaa wariyaasha aan maxaan ku raadayay warbaahintaba aan ku wargeliyaa howlgalada ka socdo ciidamada qalabka sida guud ahaan dalka guud ahaan laakiin si gaar ahaaneed gobolka Banaadir waxay noo sahashay run ahaantii xiriir aad u dhow inaan la yeelano warbaahinta qaranka iyo warbaahinta sida gaarka loo leeyahay warbixinada la siiyo howlgalada meesha ka socdaan iyo wax lamida. sidoo kale waxa culays noogu yimid markaan dhahnay wariyaasha si ay idin badbaadinaa min fadlikum ha imaanina goobaha qaraxyada ka dhaca ama goobaha falalka ka dhaca sida ogtihiinba idinka naftirkiina imise dad oo ka tirsan warbaahintiina ba maxaan ku raada maanta aakhir naga jira oo qarax dambe ku dhintay iyagoo markan oo warkii doonaya anaga marka mas'uuliyad baan saaran mas'uuliyadda koowaad wax weeyaan inaan idinku wargeliyaa waxa maxaan ku raada ka socda meeshii howlgalada iyo wixii dhacaba at the same time waxa laga rabaa in idinka idin badbaadiyaa. tababarkan oo ay ka faa'iideysanayaan hable iyo wiilal ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo abaabulay hay-adda Simha iyadoo tababaro noocan oo kala iyo tababaro kaleba ay hay-addu ku qabatay gudaha magaalada Muqdisho.